intaas kadib odayaasha dhaqanka culimo diinka dhalinyarada hooyooyinka bahda saxaafadda aqoon-yahanada saraakiisha أولا واحد السلام يقف كسته مستواها يمجع ومش كفر يهدو حزب كتير سنة يهدو دولة كتير سنة يهجرت هذا سيجارة يهدون حزب كتير سنين أنت بقى وعد نكون سلامي يقف كسته مستواها يمجع كفر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كدب وعد نكون يعذر دار يا إن هذا الكل سوق قوي ضد بدن طبعا موتي هذا الوكجرو سياسة الدلك حالة ده waxa la raadinayo waxa laga hadlayo miiqaanka ay leeyihiin iyo qofka ku mudan iyo qofka aan mudneen og in fadhiyaan goobta laakiin aan hadalka seenin laakiin waxa idin ballan qaadi doonaa xalfad tan ka duwan kana ballaaran baan qaban doonaa hadii alla idin intaas kadib waxaan rabaa insha Allah raxmaan laba dhowr qodob oo yar inaan ka hadlo mid waa mid musharaxa oo beelka ku dhagan tabeelaha meesha ku dhagan ma rabo in aan isku mashquulo Cabdirashiid waa kee maxaan soo qabtay muxuu ahaa muxuu ka shaqeyn jiray muxuu rabaa hadda inuu ka shaqeeyo ma rabo inaan ku mashquulo hadda xilliga hadda aan joogo inta halkan fadhido taqaanana dabcan horaan isku naqaanay inta kale oo Soomaaliyeedna way fududahay maanta aqoontu oo qof kasta gacantiisa ku sita qofku wuxuu yahay meeshuu ka yimid wuxuu qaban jiray wuxuu ku salaysnaa qof kasta telefoonka uu wato buu kala socdaa caalamka oo dhan baa koobal soo galiyay marka mar raba insha Allah raxmaan barnaamijka sinaada ugu mashquulo qodobkii koobaad waxa weeyaan in ay idin xaqiijiyo xamba ku jirtay suuqa ku salaysan Cabdirashiid oo musharax ma ahan kan waay ki in ay idin xaqiijiyo boorkaas anigoo aan leeyahay aan dhijistay maamintiigana lagu dhajiyay rabitaan aan leeyahay iyo qorshe iga soo baxay rabana insha Allah raxmaan oo adeerkay aad buu mahadsan yahay wadoonku walaalkay iyo jarnaalka labadaba iyo walaashay waa weydiisanaya hadduu khayr igu jiro alle hadduu si khayr igu jirinna inuu iga celiyaa weydiisanaya taas marka Allah ku xirannahay taasaan qaadanaynaa insha Allah raxmaan kelmadaas ani aad baa dadku waa dhibsadaan waxay raadinayaan in la yiraahdo ama laga geliyo laakiin amadan ku qanacsanahay aniga intaas kadib waxa laga yaabaa dadku inay isweydiinayaan 24 saac oo la soo dhaafay waxa lii barada bulshada lagu qorahayay iyo xalfadda ninkan mikrofoonka haysto waxa uu ka hadlahayo say waxay yihiin maxaa qaldan soo saas ma taasaan rabo marka inaan xoogaa nuqdooyinka dhaha biidnillaahi tacaala taas tii hore waxaa ugu gudbay intay walaalahay ii dhaheen rabitaanna iyo hadalna waxay ugu furan boorka warkeeda iyo dhammaystirkeedana waxaan ka hadli doonaa xilliga aan u ballamay insha Allah raxmaan haddii ilaahay i gaarsiiyo oo xalfadeeda labaad oo intaan iyo in ka badan insha Allah raxmaan aan codsan doono inay imaadaan inaan uga hadlo haddii ilaahay idmo Soomaalidu xaqiiqiyan waa dad wanaagga jecel laakiin wararka aad u faafiyo waxa baraha bulshada ku arkaysaan warar badan iskhilaafsan shalay waxa maqlaysaan Cabdirashiid dawladdu baa heshiiyay Cabdirashiid dawladdu baa dirtay shalay waxaad maqlaysaan hadda oo baraha bulshada wararka ka arkaynay ama aad ka akhrineyseen kamid ahaa Cabdirashiid waa fakaday horta harba inay idin xaqiijino ma fakanay ani waa ik Cabdirashiid ka laga hadlayo baraha bulshada ka arkayseen waa ninkan in la hadlayo dabcan sawirkii si fiican u soo jeesto sawirkii aniga dib u raaco inta halkan fadhida warkaas oo maliyay inta maqan baan u leeyahay eraygaas inta maqan baa eraygaas u leeyahay xilliga dalka uu ku jiro iyo xaaladda aan marayno iyo dalkanaga waxa uu ku sugan yahay iyo qataraha iyo hadda saacadda aan joogno dalka meesha u socdo waa garan kartaa aqligeeda ma lihi aragtideedana ma lihi shacabkii aan shalay u naxay colaadii aan damiyey muddo halheeshka idinku ahayd maqaayaddan anay ii shidneed waa xiri aan idhi dib inaan u furo ma dhacayso horta taas qabsada nin dagaalamayo mucaarad ah rabo inuu qof mucaarado rabo inuu qori qaato rabo inuu dagaal galo rabo inuu colaad abaabulo ma ihi mana ahan karo wax dhici karna ma aha hadda xilliga aan joognana dalku barnaamijkaas ooma baahno oo mana socdo dalku doorasho ku jira ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta walaalkay Maxamed Xuseen Rooble ilaahay baan u weydiinaynaa inuu ilaahay u fududeeyo mas'uuliyadda culayska oo saaran
dalka xasiloonadiisa ka qayb qaadan karto in lagala shaqeeyo aysan dhicin in qof ku fikiro in wax khalqalgalka dalka geliyo doorashadii dib u dhigo jaanis dad raadinaya jaanis loogu sameeyo dib u dhac keeno qofna inuusan ku fikirin anigana shakhsiyan marnana kuma fikiraya arrintaas waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiinayaan maxaa qaldan marka cabdirashiid say wax yihiin oo su-aalaadkaas dadku haddana ay qabaan aniga xamar siyaasiyiintii deegaamada kusii lahayd oo deganeed ka mid ma ahaan jirin markaan imaado inta badan xarun dowladeed baan degi jiray muddo dhowr bilood aan hadda joogay mar safar baan ka aado turki baan ku maqnaaya etoobiya marna oo dalka turkiya iyo etoobiyaan u aaday labadaas dal baan u maray safar iyo dana gaar aniga ii ahaa marna muqdishoaan joogay waxaana ka dhex deganaa xarun dowladeed guryo ku hareeraysan oo xarun dowladeed ah baan qayb badanoo ka mid a ka deganaa oo tusaale ahaan markii aan warka aan baafiyo xarunta nabad sugidda guryo ku dhegan baan deganaa laakiin si barayfad oo shakhsi aan u deganaa waxaan raadinayay meel halkaas ka access fiican inaan dego macnihii xaafad baan ka soo guuray xaafad baan degay ma ahan hebel baan la diriray maaha inaan cabdicasiis ka soo guuro oo aan madiino dego ama waaberi dego ama bulxumay dego ma ahan in qofku uu mucaarad ku yahay taas hortu fahma waxyaalaha khaladaadka waxyaalaha keena isdawareegana arrintaasaa inta badan waxaa laga yaabaa inay su-aalaadkaas la isweydiinayay waxaa kaloo gaar qofku u yahay bini-aadanka ah ra'yigiisa iyo aragtidiisa iyo waxuu qabo iyo shakhsiyaddiisa iyo qofkuu la saaxiibayo iyo qofkuu la soconayo iyo qofka uu wax ku darsanayo iyo dalka xisbiyo waayo xisbiguu aadayo qofka asagay ka go-daa gaar ahaantiisa taasna waxaan rabaa in asliyan qaabkaas loo fahmo waxaa kale oo dabcan baraha bulshada laga yaabaa inay ku qornaayeen ama arkayseen ciidamo shalay ciidamadii aa wada arkayseen oo aniga ila socday cabdirashiid janan oo ciidanka jubbaland kuna soo biirinay dowladda ciidankaas waa ciidan qaran dowladda soomaaliyeed baa iskale ciidan cabdirashiid maaha hadallo marka badan oo cabdirashiid hadduu fikirkiisaa noo noqdo ciidankii noocan waaye la leeyahay oo aad u fara badan oo baraha bulshada ku qoran baan dareemaya ereygaas waxaan u isticmaalaya wixii xaquuqaho ay leeyihiin hadday sheegtaan oo ka maqan ama askari dallacada la dallacsiiyey ah oo dallacadiisii dhaqan geli weyday ama mushaaraad ay lahaayeen oo ay waayeen aana dowladday ku leeyihiin cabashadoodana askarta soomaaliyeed bay oola mid yihiin laakiin ma aha macnuhu askarigii waa cabdirashiid kala socday ama askari jubbaland ahaa oo hadda askari qaran ah oo dhinac u taagan oo cabasho qabo dagaal buu abaabulahayaa iyo colaad buu dalka gelinayaa taas ma ahan cabdirashiidna shalay go-aankii iyo nabadii iyo warkii aan qaatay iyo fikrigii aan qabaan shalay qabaa haddana qabaa dalkana shalay markaan u turahayo dalkaan u turayaan lahaa oo shacabkii reegado oo colaadda iyo abaarta iyo cudurku iskugu darmaday maanta dalka soomaaliya oo dhan baa sariir lagu wadaa oo naxashaaran asagaa u baahan marka in la badbaadiyo soomaaliya oo dhan baa u baahan in loo naxo shalay haddaan shacab degmooyin gaar oo ku nool aan ka hadlahay shacabka soomaaliyeed baa maanta taas ka ahmiyad badan aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaan dareemayaa in badanoo ka mid ah hadalaadka aan leeyahay inaad jeceshiin inaan kusii socdo warar badan idhaahdo sii falanqeeyo maxaa adinka iyo dowladda hebelow kan ah dowladda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan idinkugu celiyo dowladdu qof ma aha dowladda soomaaliyeed waa shacabkii iyo dalkii iyo siyaasiyiin markaas dalka hogaaminayso hadda waxaa shaqada wado oo hawsha dalka wado oo doorasho la rabo dalka inuu gaarsiiyo oo qof kastoo isdiidanaa laba qof oo isdiidaneed isku keenay oo dalka inuu doorasho geeyo aan rabno waa ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta walaalkay maxamed xuseen rooble maalin wanaag ma ogi xumaan nama dhexmarin insha allahuna nama dhexmari doonto shalay rag aan dagaalsanayna waa heshiinay wax hadda colaad oo ani ugu jirto oo dagaalana ma laha laakiin shakhsiyaddiida xamar waxaan hore u sheegay inaan siyaasadda soomaaliya nin meel ooga socdo oo meel u guurahayo oo dal kale u socda aanan ahayn warkaas waxaan u malaynayaa in badanoo ka mid ah erayadaas inaad midiyaha ka dhegaysateen oo baraha bulshada aad kala socoteen inaan siyaasiyiin soomaaliyeed
oo kala aragti duwan midba maalin la fariisto midba maalin la sheekaysto midba maalin la casheeyo midba maalin la dego wax problem ah oo ay ku tahay dalka ma ah aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa idinkaga mahadcelinayaa inaad ajiibteen casuumaadii aan idin casuunay oo u mahadcelinayaa raggii dhammaan howlwadeennada ahaa waxaan insha allahu tacaala rajaynayaa dalkayaga dhib badan baan soo marnay waxaa halkan fadhiyo oo indhihigu qaban karaan dad badan oo ku dhashay dowlad la-aan dalkan kuna qaangaaray kadibna laga yaabo inay xilal ku qabteen ama maanta ku talinayo halkaanay u badan yihiin dalka soomaaliya o dhan bay u badan yihiin waxaan u baahannahay dowladnimadanada aan haysano in la sii adkeeyo wanaaggeeda laga shaqeeyo qofkii leexiyo oo isku dayo inuu nidaam qaldan ama shakhsiyad ama wax jecel isticmaalo sidii ka dhacday muqdisho maalmihii la soo dhaafiyo aad garan kartaan in dalku shacabka oo dhan u istaagi karo in lagu soo celin karo waddo sax ah oo shacabkan dowladnimadiisa iyo jiritaankiisa ay kusii jirayso shacabka soomaaliyeedna meel kastoo jiraan waa wanaagdoon waa dowladoon qof wuxuu halleeyana qabiil ma hallaynin qof wuxuu halleeyay qabiil ma hallaynin wuxuu halleeyana qarannimada iyo qof kastoo soomaaliya ka hadlawda waxaan marka u baahannahay in shacabka soomaaliyeed iyo qof kasta oo waxgarad ah aysan qabiil fiirinin qof fiirinina ay fiiriyaan qarannimada soomaaliyeed iyo jiritaankooda meesha ay aadayso waxaan rabnaa marka ma shakhsiyan ii muuqanayso oon rabnaa shacabka soomaaliyeed inaan ka codsado waddada hadda ay ku socoto wax walaalkay sheekh yuusuf siyaad indhacadde wuxuu la hadlay siyaasiyiinta xaqiiqi gaar ahaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo qaabkii ay wax u soo saareen ana hadda inaan colaad ka raadiyo iyo hadal ma rabo waxbaan rabaa walaalkii wuxuu yidhi ma rabo xildhibaan kama rabo madaxweynena musharaxa uma yidhi laakiin iyadii baan raadinayayo hadda ma rabo inaan erayo idhaahdo ayaga ku aadan laakiin qof kasta waxaan rabnaa inuu ka shaqeeyo danaha ummadda soomaaliyeed ee horumarka iyo wanaagga iyo dalka macaankiisa iyo daawadiisa kusii jirto waa u mahadcelinayaa xaqiiqiyan ra-iisul wasaaraha waana ku qanacsannahay waana kula shaqeynaynaa sistemka doorasho oo uu mas-uulka ka yahay waxaana aaminsanahay inuu dalku insha araxmaan doorasho tegi doono xasilooni leh qofku ilaahay ugu talagalaana madaxweyne ka noqon doono laakiin markii aan kelimadaas leeyahay waa tii musharaxiinta haddaa ereyga aan isticmaalahay odayga adeerka walaalkay uu isticmaalayo oo dhaqanko dad way jeclaan lahayn dad badan musharaxiin in la yidhaahdo ama mid hadda siihaya aha intaba in la yidhahdo hebel adaa xilkaadi kusoo noqonayo laakiin qofku ilaahay ugu talagalaa noqonaya xaqiiqada saas weeyaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin in badan baa idin mahadcelinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu